Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan haddana adset oo macnaha ka gaara aan duplicate ku dhahno maadaama aan adskan soo duplicate garaynay oon 4 aan kasoo dhignay. Hadda waxaan rabaa inaan macnaha adsetkan aan dhaho inaan duplicate garayo kadibna macnaha aan different target aan sameyno maadaama tan aan target garaynayno Soomaaliya, Djibouti iyo macnaha interest oo loof waxaa laga yaabaa in inta kale isku mid noqdaan oo interest la-aan aan ka dhigno kadibna aan probeyno kadibna aan aragno wixii kasoo baxo oo macnaha resultka kasoo baxo labadooda marka la isbarbar dhigo. Marka haddii duplicate taho lacabo iyo duplicate garay one okay. Marka hadda adsetkan wuxuu haysan doonaa adskii kale oo 4 tahay toos u raacaya. Marka hadda waxaan rabaa bis adset labelkan bis inaan magac ka bedelo oon sameeyo bis interest la-aan aan ka dhigo oo ageka iyo wax kasta isku mid ahaadaan oo macnaha wadanka iyo targetinka iyo waxa dhan isku mid ahaadaan. Marka haddii oo meeshan oo kale fiiriyo sidoo kale waxaan interest no love oo detail targetinku macnaha waa dadka waxa ay jecel yihiin oo target garaynayna waaye. Marka adiga haddii loofkaas aan meesha ka saarno oo macnaha waxba aan gelin meesha kadibna aan ka tirtirno loofkan meesha marka aan tirtirno copy macnaha noqoto Soomaaliya, Djibouti 13 jir wixii ka weyn oo all oo macnaha wax interest aan lahayn ayaan hadda waxaan sameynaynaa publish dollarna waa $1 waaye wax dhan isku mid waaye $1 daily budgetka macnaha dollar waaye wax walba waa macnaha wax isbedelay waxa ka jira bis interestka meesha ka saarnay detail targetinka waxaan ka dhignay aan ka tirtirnay. Haddii macnaha aan rabnay beauty oo kale oo macnaha interest nooc kale aan rabnay beauty aan ku qorleen laakiin hadda waxaan rabaa bis inaan labadooda isbarbar dhigno midna love interest wadato midna ayna wadan waxba. Marka haddii aad fiiriso midna waxaa la dhahaa love Soomaaliya Djibouti midna waa Soomaaliya Djibouti. Marka I hope inaad fahamtay. Hadda marka waxaan sameynaa another trick oo aan rabo in aan mid saddexaad sameeyo kadibna waxaan rabaa in aan fiirino midda qaadato koobka. Hadda marka waxaan rabaa inaan mid saddexaad sameeyo marka waxaan sameynaa create madhahay duplicate because waxaan rabaa inaan halka campaign aan waxaan ka hoos sameeyo. Marka waxaan leeyahay duplicate aan leeyahay kadibna waxaan leeyahay duplicate because hal xabo bis aan u baahanahay. tan waxa waaye inaan bedelaan rabaa meesha Soomaaliya Djibouti hadda ay ka tahay inaan ka bedelaan rabaa oo macnaha meel kale aan target garayo adduunyada kulligeed inaan target garayaan rabaa because waxaan rabaa bis inaan hadhowti isla fiirino worldwide adduunka oo dhan oo macnaha countryyaal qaar kamid aan ka saarayno wadamaha oo xoog qaaliga marka oona macnaha wax interest ay waxaasna aan gelinin ama detail targeting waxba aan gelinin. Marka hadda haddii imaatid oo kale locationka marka imaatid waxaan ka tirtiraynaa locationka Djibouti tirtir Soomaaliya tirtir meeshan marka ay ku qoran tahay meeshan oo browse ku taalo oo macnaha meesha wadanka gelileed camal meeshaas ku dhufo browse ku dhufo kadib waxaa ku dhufataa all countries because adduunyada dhan rabaa inaan target garayno all countries ku dhufo. Marka hadda waxaa waaye waxaan target garaynaynaa adduunka oo dhan ma fahamtay laakiinse adduunka oo dhan inaan target garayna ma rabo waxaan rabaa wadamo qaar oo qaali ilaa wadamaha kala qaalisan yihiin mogtahay wadamo qaali inaan ka saaro. Marka waxaan leeyahay meeshaan ku dhufanaa drop down falaarteeda oo hoos ujeeda ay ku taalo kadibna waxaan ku dhufanaa exclude. Marka exclude ku dhufto waxaan leeyahay wadamada aan rabo marka inaan ka saaro sida United States oo kala qaali waayo ka saar, United Kingdom ka saar, Australia ka saar, Japan ka saar, China ka saar saas camal inaan halal ugu qoro. America meeshaan oo kale waxay ugu taalaa wadamada oo macnaha intaana
intaanad waxaan ana sameynin oo meesha ugu qornay waa adiga kolley baal wuxuu ugu qornay jirta meesha laakiin waa sii diyaarsaday inaan waxaana waqtina kaa lumi marimin. So haddii aad rabtid oo kale in aad heshid wadamadan maybe inaa hoos ku dhaafaa laga yaabaa lacala hadaa u baahato inaa macnaha page aad sameysid oo adduunyadoo dhan ah. So marka wadamadan isoo copy aan soo dhahaa. So marka waxaan leeyahay meeshaan aan ku dhufanaa marka browse maadaama exclude ku dhuftay meeshaan browse ku dhufo kadibna waxaan leeyahay save location kabacdina waxaan leeyahay create list maadaama aanan list meesha ugu jirin. So marka haddii aan ku dhufto kale meeshaan select ku qoranta oo kale countries aan ku dhufto kadibna aan markaas meeshaas paste ku dhahdo oo wadamada aan soo qaato dhan kabacdina waxaan isku dhufo. So هذه 56 countries Japan North waxbuu soo qoraa waxbuu soo arkaa qaldan hadda kan oo kale waa bedeli kartaa markaas laga yaabaa inay ahayd North Korea wadanka markaas magaca ula bixisaa markii aad listiga aad wax dhan meesha geliso magaca uu weydiinaya in ula baxdo. So markaas adiga waxa rabto ula bax expensive countries ula bax wadamada qaaliga ula bax waxa rabto ula bax wadamada qaaliga so save that. So marka dhowtii haddii adiga aad u baahato in aad macnaha inaad samaysatid listigan oo kale inaad dib u doorato directed oo kale save adaysa markaas meesha browse exclude browse save browse taabanaysa marka browse taabatid kadib wuxuu ku weydiinaa save locations kadibna waa kuwana wadamada qaaliga ah meeshaas kugu qoran yihiin meesha kaga soo baxayso marka select leedahay si easy. So hadda marka adduunka oo dhan ayaan target gareynaynaa wadamaha qaaliga oo wadamada qaaliga ah meesha noogu jiro Denmark, Sweden, Switzerland, Norway, Japan, New Zealand, Australia, Italy, Latvia wadamadaas aan ka saarnay macnaha wadamaha kale marka toos oo kuwana marka wadamooyinka hadda aan meesha gelinay. So marka maadaama ay xayisiintan arkayaan dad aan Soomaali ahayn waxaan rabaa inaan horta magac u bixiyo. So hadda marka adduunkoo dhan iskaga baxso wax rabto ula bax dhib male waxaan rabaa marka inaan imaado meeshaan oo ku qoran tahay Adobe One Image One because waa ka dhamaaday adsetka meesha adset levelka waa ka dhamaaday because waxaan rabay inaan ka bedelo bis dadka adduunka locationka wadanka iyo waxaan rabaa bis iyo lacagta isku mid waaye locationka oo areada ama xaafadda ama wadanka aan target gareynayo meeshan detail target inay ku qoran tahay haddii rabtid oo kale wax ka dhigi kartaa oo kale meeshan you can choose detail targeting oo kale love ayaad dalba kartaa haddaa rabtid haddii kalena iska dhaafi kartaa. So hadda haddaan love raadin oo kale waxaan macnaha xayisiin inay tahay wax iska jecel reachka waa ilaa 8 milyan okay. So marka waxaa imaanaysaa meeshaan hal inaan bedela rabaa marka Adobe One Image One. So maadaama imageyadii wax dhan aan haysto waxaan isku dayaa lebis inaan ka bedelo qoraalka. So marka hadda qoraalka meeshan aan tagaa qoraalka waxaan soo qaadanaa qoraalkii styleka ahay. So marka waxaan leeyahay marka kaba soo qaad waxyar isug computerka waxyar adeeg noqonayo. Okay asxaabay computerka waxyar istaag noqday. Okay waxaan sameynayaa marka English aan bedelno. So waxyar iska spread the love like our page.
so waa macnaha wax yar iska simbala qofka markuu arko waxaa rabaa bas inuu fahmi karo quickly spread the love and like our page. Okay, waa iska qaybi jacaylka haddii aad ka hesho oo kale macnaha fahanta. So kan waxaa nooga dhigaa kan waxaan ka dhiganaynaa add copy to. Okay, kan waxaa noogaanaa add copy to. So add copy to noogaanaa kan publishka spread the love and like our page. Add copy to. So add copy to hadana waxaa waaye spread the love and like our page. So add copy to oo dhan isku mid ahaadaano. So marka hadda image add copy one aan sameynaynaa. So hadda add copy one iyo image one aan sameynaynaa. Marka haddii aan ku dhufto edit aan ku laabto meeshan waxaan u baahanahay different copy aan u baahanahay inaan qoro. So marka waxaan leeyahay if you love this like this, very simple. Mar rabo macnaha qofka inuu like our page aan dhihi karaa ma like this aan dhihi karaa. Macnaha qofka markuu wax arko waxaan rabaa bis inuu haddana uu macnaha iga carara ma rabo inuu macnaha inuu waxaan rabaa aan u fududeeyo. Hadduu ka helay like iska taabto bis wax kale mashquul kale ma bijiraba maantay. So okay, kan publish aan leenahay waxaan arti one more I think. So this one here. So haddii aan ku dhufto kadib add copygaas bis aan bedelaynaa sawiraha wax dhan waa haysanaa mogtahay. So waa kan okay. So qofka markuu arko waxaan rabaa bis in uu isku marka fahmi kariyo kadibna uu isku like una taaban karo. Okay, so hadda marka imaatid adska aan samaysana maanta hadda marka waa kuwaana kulligood labada ugu horreysay ayaa diyaara oo caawa markii waqtigooda la gaaray toos u bilaabanayaan. kuwaana maadaama ayaga le aan ka dhex koobiyeynay waxsaas waqti ma qaadan doonaan insha allah. So markii Facebook waa aqbali doonaan oo wax different creative ma wataan. waxaa soo hartay adsets marka imaatid we have saddex adsets haddii aad fiirisid meeshan saddex adsets aan haysanaa. mid adduunka oo dhan ah iyo Soomaaliya Djibouti oo interest detail targeting aan lahayn iyo mid detail targeting love ah wadato Soomaaliya. Marka saddexdaas kulligood marka waa hal dollar ama hal pound hal pound waa kulligood xabadiiba £1 waaye oo macnaha daily budgetka. So marka waxaa rabnaa markii 24 saac kasoo wareegato inaan isla wada fiirino oon dhahno okay tan adduunka oo dhana per page like intaas ayaan ku helaynaa. page like lacagta aan ku helayno per page like waa intaas. tan oo Soomaaliya Djibouti oo interest detail targeting lahayn per page like intaas aan ku helaynaa. tan intaas aan ku helaynaa. Marka saddexdooda macnaha tan waan dami doonaa oo adduunka oo dhan ah
because macnaha waxaan ka rabaa bis haddii oo aan aragno un bis enough time waqti fiican oo ay socoto ay at least maybe 70% of daily budgetka markay bixiso kale u arki doonaa markaas maadaama aan rabin dad oo Soomaali yihiin oo fara badan inay page iska soo galaan marka waa kaas haddii ay maatid campaign levelka oo kalena hal campaign aan haysanaa halkaas campaign oo Jebron page lag Jebron page lag campaignkaas adsadka waxa waaye waa 3 halkii adsadna waxay haysataa 4 marka haddii xisaabtaas ku dhufatid we should have meeshan ilaa adiga 12 marka waa kaas xisaabtu ilaa marka sana ku dhamaatay casharkeeni oo page lag marka hadda waxaa fahamtay si page lag loo sameeyo intaas keliyana ma fahmin waxaa fahamtay sida page lag raqiis loo sameeyo so haddii xataa aad rabtid oo kale inaad ka ganacsatid oo qof page lag sameeyo oo kale aad ogtahay inuu page lag sameeyo waxaa dhihi kartaa labis page lag anaa ku sameynaya bish intaas ka bixi ama kale ku shaqaysan kartaa labis sida page lag follower dadka loogu sameeyo macnaha haddaad ogtahay inaad macnaha $100 marka lagu dhiibo intaas aad keeni kartid oo page laga oo macnaha haysidna khibradii oo kadibna aad different test iyo different waxaad sameyn kartid aan hadda waxaan sameeyo dhan macnaha oo picture-ka soo sameeyo wax weyn ma waxaan tagay bis meelahan oo Google-ka iyo meelaha soo qaatay picture kadibna mid romantic ah raadiyay romantic aan soo qaatay waxaan geeyay meeshan oo remove background-ka ka remove gareeyay kadibna waa iska kor saaray labis ka soo bax marka waa iska wax weyn ma haddii aad tahay qof oo macnaha picture-da iyo waxaan iyo graphic design-ki waxa sameeyo obviously waxa haysataa adiga fursad fiican oo anaga fursad fiican tahay haddii aniga camal aad tahayna macnaha waa ina xooggaa ku socotaa waxaad isdaba marisaa because aniga mihi graphic design marka waa ku salaamaa soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu